السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر عصب وأنا كبرانينو بايثون modules يسيد الله استعماله. modules كوا فايل any file بايثون فايل بدو يهي module ويان. فايل كاس وحا كجري كرا definition أو functions كان سو براني statements كي if then else وحال با كجري كرا variables. مركا it can be imported. waxaan importan ku samayno ayaan isticmaali karnaa Python programs kala isticmaali kara. Python module is a file containing Python definitions and statements that can be imported and used in other Python programs. Programming kala markaa isticmaali kara. Modules help organize code into logical units. Marka codekii ayuu kuu fududeynaa inaad organize garayso. Meeshaad wuxuu dhan aad ku wada qori lahayd hal file ayaad qaybinaysaa faylashii hadhowta kaad u baahantahay aad import kusoo samaynaysaa. Marka wuxuu faa'iido koobaad waxa weeyaan to promote code reusability. Codeka aad dib u isticmaali kartaa. Marka file extensionkiis waa Python, waa file Python caadi ah. Reusability code in modules can be imported and used in multiple programs. Marka hal codekii intaad samayso modulekii ayaad soo import garaysan kartaa. wuxuu kuu fududeynaya hadhowta inaad markaa wixii isleh aad hal meel hal module geliso. marka organizationka ayuu kuu fududeynayaa. Related functions, classes oo baran doono iyo variables can be grouped together. hal meel intaad isugu geyso ayaad markaa isticmaali kartaa ood soo import garaysan kartaa. iminkan waxaan arkaynaa tusaalooyin ku saabsan sida loo isticmaalo moduleka. halkan markaa waxaan ku haysanaa waxaan sameeyay file waxaan u bixiyay mymodule.py. marka magaca dadka u bixin kartaa laakiin waxaan u bixiyay anigu mymodule. marka magacaas waa muhiim hadhowta markaan import ku samaynayno. marka modulekan filekan ayaan rabaa inaan isticmaalo oon file kale ama program kale aan ku isticmaalo. marka waxaan sameeyay file kale isagana ama Python file kale oo u bixiyay main.py. marka main.py wuu maran yahay. waxaan rabaa marka inaan soo import gareeyo moduleka. waxaan oran karnaa import my module. muhiimadda waxa weeye marka .py ma odhanaysid. py-ga waad ka tegaysaa fileka magaciisa baad isticmaalaysaa. iminka fileka waan soo import garaynay. haddaan rabo inaan printer gareeyo matalan messagekaas ku jira fileka waxaan odhanayaa print my module. haddaan dot dhahana wixii ku jiro dhan baan arkaynaa. waxaa noogu jiray function calculate area, waxaa noogu jiray function greet, waxaa noogu jiray variable message. messageki haddaan dhaho run waa kaa markaa messagekii hello world printer gareey. waxaa kaloo module ku jira matalan functionkan greet oo soo celinaya hello iyo magaca u dirno. marka isagan haddaan rabo inaan isticmaalo waxaan odhanayaa message ama waxaad doontaad u bixin kartaa text greet is equal to my module dot greet. marka waxaan oran karnaa print run haddaynu dhahno kainoo bitirgaray hello Ahmed. marka muhiimadda inaad fahantaan waxa weeyaan modulekanu isticmaalayno codeka oo dhan wuxuu ku jiraa file kale. codekaasaan u yeedhanaynaa oon markaas sidaan doono isticmaali karna. waxaa kaloo ku jira hadda matalan calculate area oo inoo xisaabinaya areada. hadaynu dhahno markaa area radius waa 10 noo xisaabi areada. marka noo xisaabi. marka module saasaa loo isticmaalaa. waxaan baranaynaa habab kala duwan oo loo soo import gareeyo. midda ugu horeysa waxa weeyaan waxaad aragtaan mar walba my module inaan soo celcelinayo. marka waxay nooga fudud inaynu dhahno inaan u samayno wax la dhaho alias. alias adigu waa nickname oo kale, waa magac ayaan u samayno. waxaan odhanaynaa my module hadkid waxaan u bixinaynaa as oo kale. marka hadda kadib my module ma isticmaalin, waxaan isticmaalaynaa marka fileka sidii la rabay ayuunbuu u shaqaynayaa. waxaan keliya ka bedelnay magacii dheeraa ayaan nidhi hadda kadib waxaan u bedelaynaa haddaan run dhahno sidiisi ayuu u shaqaynayaa. marka markaynu dhahno import my module wuxuu soo import garaynaya wax walba oo moduleka ku jira. waxaa laga yaabaa inuu moduleka ku jiraan 100 functions 100 function. marka boqolkiibuu kuu soo import garaynaya. haddaad uga baahan tahay dhowr function ama
dhowr class waxaa isticmaali kartaa hab kale marka waxaynu odhanaynaa from my module import haddaan rabno greet inaan soo import garayno waxaan odhanaa greet print message markaan dhahno okay inoo shaqaynaya hello Ahmed laakiinse calculate area oo kale hadda ma isticmaali karno haddaan dhahno area calculate area ma isticmaali karno sababto mayna soo import garayn haddaan rabno soo import garayo marka waa inaan dhahaa comma calculate area markaasaan soo isticmaali karno oran karaa markaabkan wuxuu kuu fududaynayaa inaad soo import garaysato wixii keliyaad u baahan tahay isagana waxaad isticmaali kartaa alias meesha hadda greed aan ka odhanayno magaca haddaan rabno soo gaabsin waxaan odhan karnaa as g oo kale kan waxaan odhan karnaa as c meesha marka greed ka qoraynay functionka waxaan odhanaynaa g wuu inoo shaqaynaya meeshaan calculate area ka odhan lahayn haddaan dhahno c wuu inoo shaqaynaya marka aliaskaasaa loo isticmaali karaa okay sidaan hore usoo argay marka moduleka markaan soo import garayno moduleka magaciisa isticmaalaan dhahnaa matalan hore waxaan u aragnay haddaan dhaho waxaan aragnay import my module markaynu soo import garayno waa inaan markaa isticmaalnaa module magaciisa haddaynu alias u samayno xataa waa inaan mar walba isticmaalnaa aliaskaas ama modulekaas laakiinse haddaynu rabno wax walba inaan soo import garayno inagoon isticmaalin module nameka waxaan odhanaynaa from my module import asterisk that means import everything taas micnaheedu waxa weeyaan markaa import wixii ku jira modulekaas oo dhan hadda marka function namekii gooni ayaan isticmaali karnaa module namekii ama aliaska uma baahna isticmaalno wax walbaanu inoo soo import garay haddaan dhahno iminka print halka waxaan ugu qornaa message si aynu isugu khaldamin kanaan u bixino matalan text messagekaas hadda wuxuu kasoo qaadayaa moduleki marka hababkaa kala duwan ayaa moduleka loo soo import gareeyaa marka pythonka waxaa la socda modules badan oo la isticmaali karo haddaad ku qorto matalan googleka python modules index waxaad tegi kartaa documentationka marka thousands of modules yaa la socda haddaynu rabno matalan xisaabtoo kale inaynu isticmaalno waxaan isticmaalaynaa moduleka math baynu raadinaynaa math module marka mathka haddaynu ku dhufanno functionskan oo dhan ayaan isticmaali karnaa marka haddaynu rabno inaynu isticmaalno square rootka waxaan isticmaali karaa functionkaas inagoo mathkii isticmaalayna haddaynu ku noqono hadda filekeeni waxaan idhanaa import math kabacdi marka waxaan odhanaynaa print math dot sqrt square root of 16 and dhahno run xinoodibkee 4 times 4 is 16 waxaan kaloo odhan karnaa from math import square root sqrt comma pi labadaba marka square rootka hadda uma baahnin inaan dhahno math dot saasaan isticmaal square root waxaan kaloo print gareyn karnaa print pi then run dhahno square root 4 pigana waa kaa inoo print gareey marka mathka waa muhiim isaga waa la isticmaalaa waxaan kaloo soo import ku samayn karnaa sys import sys then dhahno matalan print sys path oo kale haddaynu dhahno run wuxuu inoo sheegayaa pythonka hadda fileka inoo furan pathkiisa waa python youtube main syskana isagana aad baa loo isticmaalaa waxaa kaloo isticmaalaa random wuxuu inoo siinayaa random number haddaynu dhahno number is equal to random
number وحينا سينا ودحيا 0 إلا 1 marka mar walba run garayno hadda wuxuu siiyay 0.4 haddaan run dhahno mar kale 0.12 marka mar walba wuxuu siiyay number u dhaxeeya 1 ama 0 ilaa 1 waxaan oran karnaa waxaadna siisaa random meeshaan ka isticmaalaynay random int integer number u dhaxeeya 1 ilaa 10 marka wuxuuna siinaa marka number u dhaxeeya 1 ilaa 10 sidaa dooranaya numberku markaa rabo randomka waxaan kaloo isticmaali karnaa inaynu markaynu haysano collection an item ka soo qaadano mar walba isagoo random ah waxaan oran karnaa matala name is equal to random dot choice ayaa marka la isticmaalaa names collection kama sheegna marka waxaan oranaynaa magaca doonto bal adigu noo soo qaad isagoo random ah anaan print dhahnaa waxaan noo soo qaaday Cusmaan tan ku celina Axmed Ali Axmed numberku rabo markuu soo qaadaya marka geemamku kale inta badan loo isticmaalo markaad rabto inaad number random ah aad soo qaadato ama collection kale inaad ka doorato random item intaasaan ku gabagabaynaynaa inuu casharka dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh